murashax maxamed amiin cabdi cilmi dixood oo tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ayaa deeqo biyo ah iyo cunto bisil oo diyaarsan gaarsiiyay deegaanada Habaasweyn, Warta Maxaad Fanax, Shabaaqe iyo Wirwid oo ay ka jiraan abaaro biyo la'aan oo saameeyay dadkii iyo deegaankaba. waxaanu xildhibaanku biyo dhaanka uu waday bulshada ugu shubay baraagihii ay lahaayeen. socdaalka murashaxa waxa ku wehelinayay odayaal ka soo jeeda beesha murashaxa. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay oo murashaxa u mahad celiyay bulshooyinka deegaankaasi ku dhaqan iyo odayaashii ku wehelinayay murashaxa socdaalkiisan. waxaana ka mid ah hadalladoodii salaatu wasalaam ala rasuulillah. alxamdulillah markoo le ma hadalna ilaahay bay u sugnaatay jalla wa ala. marlabaad waxaanu aad iyo aad aan ku hadlay magaca deegaanka aan gudoomiyaha u ahay Habaasweyn aanu xambalyo iyo mahadnaq u fidinaya xildhibaanka golaha wakiilada ama deegaanka maxamed amiin cabdi cilmi dixood oo deegaan ahaan xilliga lagu jiro oo xilli abaareed oo ay deegaamadana ka jiraan biyo la'aan badani soo gaarsiiyay inuu dadkii abaaraysnaa uu ku caawiyo raashin bisil iyo biyo dhaan oo u booyada keenay. waxaan leenahay jazaakallahu khayr. waanu ka gudoonay, waxaan ilaahay ku weydiinaynaa in ilaahay kii fuusa ka dhigo. xildhibaanku uu mahadsiiyay ilaahay baa mahad leh bilaa mahad ma geeyo mudan laakiin xilka kaar kale waa loo qaaday cod kale waa loo soo naca muxuu ahaa maxamed amiin hadii alla yiraahdo marka xiga xildhibaankan maxamed amiin cabdi cilmi dixood waqti adag oo biyo la'aan ay jirto ayuuna soo xusay. ilaahay isagana ha ka jaysiyo waqti adag oo biyo la'aan ayuuna soo xusay. biyihii iyo alaabtiba uu soo gaarsiiyay. qashadan khayrka fara badan leh nagu kulmiyay halkan xildhibaan maxamed amiin cabdi cilmi iyo odakayd iyo wafti kale oo ballaaran oo la socda sida ballaaran ay noogu yimaadeen iyo deeqda biyaha ah aynu soo gaarsiiyeen anagoo ah magaalo Wirwid oo laba booyadooda biyana la soo gaarsiiyay deeq magaalada joogno gudoomiyaheeda iyo odayaasheeda. waxaan ugu salaamanaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga soo jabiyo abaaraha oo barwaaqadiisa noogu deeqo. halkan maanta waxaanu wadnaa deeq biyood iyo deeq raashin oo ugu soo deeqay deegaanadan xildhibaanka deegaankan uga sharaxan golaha wakiilada ama baarlamaanka maxamed amiin cabdi cilmi dixood. deeqdaas oo ka kooban biyo iyo raashin anagoo ku waajahan Habaasweyn oo nimanka kala hadlayno Shabaaqe, Wirwid, Warta Maxaad Fanax iyo intii ilaahay na gaarsiin karo. runtii xildhibaanka waynu uga mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol. damqashadiisa uu ka damqaday waqtiga lagu jiro ee uu ugu deeqay wixii karaankiisa ah deegaanka uu sharaxay. insha Allah bismillaahi kariim noqon maysa tii ugu horeysay, noqonna maysa tii ugu dambeysay. in badan oo kale haddii alla inagu sameeyo isku soo noqon annagoo kolba idiin sidna wixii karaana qayna ninka maxamed amiin cabdi cilmi dixood waa xildhibaan u sharaxan golaha wakiilada ee caasimadda Hargeysa gobolka Madoorjeex ee Muuse Bakar ninka soo sharaxan yahay. waa nin reer magaala oo dhaqanka biyo wax badan ka aqoon. dareenkiisa danoo ka siiyay maanta saacada taagana waa 1:00 duhurnimo waqtigeenu ka joogna. waa arkasaan xilligaanu taaganahay xiradii geel waatan waa u jeedaan oo arkasaan caleenta iyo waqti walka qoygaas xiradii xilliga ka dareerin. intii kale way harsanaysaa watanka ku jirta inuu talka cusub wuxuu gelisay wacyiga wadanka jira iyo abaaraha ayaa xilliga keentay waxyaabaha dareenkiisa ayuu u damqaday oo dacwa wixii karaankiisa la karsiiyo. wafdigana waxa hogaaminaya maxamed amiin cabdi cilmi oo u sharaxan golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kana sharaxan beesha Muuse Bakar.
waxaan halka dadka abaaraysan ee waqtigu hayo aanu gaarsiinay deeq biyo ilaahay baa deeq baxsha laakiin adigoo haraadan oo adigoo naftaadoo keliya ay haraadan tahay qofka koob kuu dara ee ku waraabiya waad ku haraad baxda deeqda ka bixiya waa ilaahay intii taagiisa wuu gaarsiiyey biyihii waa kuwa taagan hooyadihii ugu shubaya banaagaha ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in deeqdiisa isagaa deeq bixiyaahe raxmadda uu noo shubo barwaaqiyo bashbash ilaahay uu nooga dhigo taasaanu ilaahay ka baryayna ugu dambayntii maxamed aamiin cabdi cilmi duxood murashaxa golaha wakiilada u tartamaya ayaa isaguna ka warramay deeqdan uu gaarsiiyey deegaanadaasi marka hore ilaahay baa mahad iskale noo saamaxay oo noo suurtageliyey inaynu si nabad leh u soo gaarsiino deeqdan biyaha ah deegaanada hawdka ama hargeysaba ee isugu jira magaalada habaasweyn magaalada jawaaqe magaalada wirwid iyo magaalada warta maxad fanax oo deeq biyo ah aynu soo gaarsiinay maadaama oo lagu jiro marxalad biyo la'aana oo abaaro oo jiilaad dabadiya barnaamijkan wuxuu ku yimid runtii markii ay noo muuqatay baahida bulshada aanu matalayno insha allah haysata waxa uu dawiirkayguna tusay in aanu dadkayaga wakhtiga ay baahan yihiin wixii aanu tari karno calaakhiraan aanu qabanno insha allah tanoo qudheetana ku ekaan mayso wixii kale ilaahay noo saamaxo waanu suurtagelin doonaa dadka daawanaya u muujinno aynu tusno marxaladda bulshadu ay ku sugan tahay yani runtii socdaalkan iyo deeqdani ma aha mid kaambayn waa mid la wajahday oo maarta aynu doonayno inaynu wax ka taro dadka maanta baahida iyo dhibaatada haysatay dadkeenniya oo jiilaal dabadii abaare haysato dayrtiina aynu ogeyn inuu roob hagaagsandiin maantana ay barkadihii wada gureen xoolihii ay kowdii maalnimo weli xeradii ayna ka aroorin yani waxa weeyaan ilaahay baynu baryaynaa horta ilaahay baynu kul hor baryaynaa in uu abaartan ka soo jebiyo oo uu nimcadiisa ugu bedelo oo roobku u doo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan runtii farayaa cid walba oo wax soo tari kartana inay soo tarto dowladda laftigeedu inay la socoto dadka xaaladooda oo aanay cid kale ku hadlaynin ama hay'ad ku hadlayn ama shakhsiyaad ku hadlaynin ay iyadu mas'uuliyadda koowaad qaadato dadkaalada warta maxad fanax oo aan hadda keenay booyada biyo ah si ay ugu dhaamiyaan dadkan deegaanka degan ee ay abaartu hayso jiilaal dabadii ku jira biyo la'aantuna hayso waxa weeye marka hore ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu abaarta ka soo jebiyo nimcadiisuna marka u diiyo war saddexaadkana waxaanu faraynaa deegaanka dadka ku dhaqan warta maxad fanax komishinkii baa jooga hadda oo beritoole ka hawlgeli doona kaadharkii baa la bixin doonaa waxaa jirta waxoogaa dad ah oo dadkii kaadharka iska diiwaangeliyey oo deegaankii ka hayaamay maadaama abaar iyo maxabalkii jiilaal dabadii lagu jiro dadka deegaanka waxaanu faraynaa runtii inay ka faa'iidaystaan fursaddan oo maanta aanay jaaniskaasi seegin inay kaadharkooda qaataan si beritoole ay codkooda ugu cilbaxaan komishinkana waxaan leenahay inay xal iyaguna maxabalka keenaan dadkaa tegey ee fogaaday qaarkood ee kaadharkoodii maanta hadday qaadan lahaa laakiin laga soo raagay jiilaal dabadii maanta kaadharkii loo keenay duruuf iyadoo haysato baltaana xalkeedii in la keeno oo hoos loo eego dadkaas ayaanu komishinkana faraynaa deeqdan uu murashax maxamed aamiin cabdi cilmi duxood uu soo gaarsiiyey deegaanadan ayaan ahayn markii koowaad balse wakhtiyada abaartu ay ka jirto deegaanadan ayaa waxaa murashaxu uu aadaabaa gaadhsiin jiray raashin iyo biyo deegaanadaasi